السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحنا آدي بوجادين يا وزارة قرشينته يعدي كتب تابسيبا ما أنت صوبا نجاي قرشها قرنكا شنطة السنة صوص عضة وان كبوجادين يا دذلك بدن تمريض القارة صعدها بدن الشقيين يجي أنت لا شقي سبا قرشها أي صوص صارين ودور شهر هرنا كلا قيب قلي وقرشه هدي الله يرحمه وإنه كده ذا لا إنه سيس أرجلينه أينه كقارنه هرو مرة قاله ودين أول بقى سادرتين وحنسوي شيء إياه وهنقعد سنة إياه هي أدول بقى يعيد والبا مسؤولية وصاريه هذي الدولة تهاي هذي جناعستها تهاي هذي أقوياء تهاي سومال اللان قف والبا يهاي أدولبا إن يحرس كسارته إن نهارنا كتوكسنو ونوذهر جرينو سببته أوادنتني ومستقبل كني إنه جوا يسوق تاجنا وتلا كمرة علينا أيوم بين المستقبل كنا هرمر كجارينا إنتنا نورينتنا نشوفنه وبتكينا مستقبل تذكر ما تكون أحسن وصل ما كرره وحن تاجرية فكرة أورانا يسا وحي كعمها جا بيلقين رجاه مير كجاري ما ينو عاومه يبوه لا ينسيه مير جاري ما ينو waxaynu u baahannahay in maskaxdeena ku korino soddon sano baynu dhahan hay'adaha caawinaya meel baahan caawiyo haddana bariyadeenu intii hore ma ka sii baataay kama yaraato qabkeenu hoos u sii dhaca oo waxaanu sii qabatinaa bariyada marka waxaan u lahaa qorshahaas maskaxdeena ha koriyo horumarkeena dhaqaaleena koriya aynu soo tagno aad baan mar labaad u hambaleynayaa ka intii laga sheegay baa inagu filan waxaan u mahadnaqayaa gaar ahaan dadka hawsha badan mar walba ka qaata soo bilaabay Dr. Saacad ka mid yahay oo qaranka qorshayaal badan oo wanaagsan uga qayb galay hawl badan oo haya shukri baadaro oo maanta aan doonaan uga mahadnaqo maalintii wasaaradda la geeyay oo dhowr iyo 10 sano hayso dadku waxa arkayeen wasaaradda aan jirin laakiin waxaan ugu mahadnaqayaa in dhowr iyo 10 sano muujisay deegaanku muxuu yahay oo maanta qof waliba deegaankii u soo jeedo u dhageysanayo ay noqotayna inaynu fahmnay haddaynaan deegaanka daryeelin inay nolosheenna iyo kuwa ubadkeena aynu baabiinayno aad iyo aad u sarda ku ruqaa dhammaan madaxa kale waan mahadnaqayaa wasiirka qorsheyntana waan ugu mahadnaqayaa dhalinyarada fiican ee uu soo hirgeliyey qaran ahaan maanta Somaliland sanadkan aanu joogno bilowgiisii aanu joogno iyo maanta halkaynu maraynaa alxamdulillaah waa wanaagsanahay dal iyo qof iyo shirkad adduunyada bini aadam wuxuu soo dhashaa isagoo ooyaya markuu soo dhasho isagoo jibaadeena u dhintaa intuu bini aadam nool yahay hawl baa horta Allah u xalilayo marka hawsha iyo noloshu waa walaal dhibaatada iyo noloshu waa walaal qof waliba saaka guriga ka soo kacay baahi baa taalay shakhsiyan isaga hawsha u taalay oo shirkad weyn hawl baa meel ka taalay marka markasta dhibaato way jiraysaa qaran kale dhibaato way ka hormanaysaa haddii si uu xaliyo dawladana waxa loo sameystay inay xalisho dhibaatooyinka maanta hawsha inoo taala Soomaaliya sanadkan waqtigan joogno waa laba qodob qodobka koowaad oo maanta muddaanteenu saartay waxa weeye dhibaatada ka jirta gobolka Sool oo ahayd dhibaato aynaan filayn nasiib darrana ah dad nagaga dhintay badan dhaawacmay khasaare badan naga gaaray waa dhibaato aynaan filayn oo inagu timid maantana waxaan filayaa in qof walba ku fikirayo oo Soomaaliland darihi dhibaatadaas si loo xaliyo muhiimadna koobaad muddaadkooda waa inaynu xalilno dhibaatadaas caanood si nabad dawlad ahaan mar walba waxaan ku dhawaaqaynay xabad joojin dagaalkeena joojiye shuruudaan ciidamadana waxay iska xakameeyaan qarar ahaanna aynu nabad ka doono bilowgii ilaa halkii u dambeysay tiraba 3 jeer ayaan halka ballan qaaday xabad joojin shuruudaan أنا ما قدرين
dhibaatadu way taagan tahay maanta waxay la tahay waxa joogana loo taliyo nabadana laga wada shaqeeyo waana muuqataa saansaankii nabadda imika in loo dhiga nuur yahay waxaan codsanayaa Soomaaliland dhameeyay nabadda ugu durto sideen u aragnaa dhibaatada maanta xalkeedu inuu yahay koow halkaan u aragnaa waxa weeye arrintani waa arrin Soomaaliland gudaheeda waxa weeye gobol Soomaaliland kamid ah oo dadkooda iyo muwaadiniinta Soomaaliland oo wax ka tirsanaya dawladda waxay u baahan yihiin in loo fariisto la dhageysto dawladda ahaan diyaar baan u nahay wixii ku qaloocan laga saxo wixii laga qaldamay iska garaabo iyaguna waxay ka qaldameen ka garaabaan waana waxaan dhammaysan karno haddii Soomaaliland horena waa dhammaysan jiray qaar la mid oo badan bayna soo maray dagaal gudaheena oo badan oo sidoo kale la kala codayna soo maray كم دولار قاتي Somaliland باكليجد حلالتي يلا أنا أتوسوي إيمان مير قبل فريستي وحي قدرة ولا شيء قرابي دلكنا وكل اسمه ما تو حولنا هاي أريد أسوي Somaliland حديده عيد أنا قرش غير سنة نبض أما الدولة ما أوروه ولا غير دون سيد عدو ترى سنة نبضه ولا كاشرنا هو أنه أقول هاي إنه كل كهرة لكن قبل أبوه والسوماليلاند ونحن دلوقتي كانوا عاونين وحنا نقولين ونعقول هاي إن تذكر قاركي أما قريب كم من الصومالية وبطلان قبل كراهي إنه دجالك هي ترادا هي فرقين غير عادي الله صور الصور يسوق راعي هب قبلية تاسي سحمها أفريقيا أي حدث كي استعمارهم قريب صدي دنا وحي مودي أفريقيا ويهشيس كتاهي إن حدث كسودي هذا حدي كان أفريقيا إذا حد سومالي كرميس حد كسومالي لأنه واقع عالمي مركا عيد كبدلي كرتا دي أفريقيا بلحيرية أفريقيا تراكي استعمار كي نقدا يمو يعني أي نسكوا أي ندي مقدمو يعني كريجت سومالي حد كذا لو أرن ما يجوني هالله فوقه شرعي أفريقيا ما أقرأ كعقل ما أقرأ سومالي وقيب سنته قيب يوحى إلا نوشة يتوبيا ويوحى هذا وأقول له هاي حد كان دورنا وأنا كنت هنديرنا إسكاش ونكسنا وأنا كنت دورنا ولا يرين قيب كينيا وحى هذا واقو احترامنا مدوا جبوتي عن فرب ودقيه أو حوذريه أو دليل ولا لبي كذريه واقو هم بلينا واقو حق دورنا Soomaaliya Puntland iyo Jubaland iyo South baxay koonfur galbeed iyo galmudug waa gobollo iyo maamul Soomaaliya waa ku hambareyna ku fargelinayno maamulka Puntland iyo dawladda Puntland ka tirsan Soomaaliya ka tirsan iyo madaxda Soomaaliya waxa leenahay war fargelinta ciidan leh ee kharash leh ee tala soo gurida leh xaq maaha ee kala baxa oo nabadgelyo oo dhamaystiran noo daay dawladda Itoobiya oo naga codsatay oo tii hadii ay dhibaato tagtay walaaliin baan nahay madila qabana wax nabadda cid la qabso oo go'ay cid walba laakiin marka hore qaabka lagu dhisay nabad waa maxay waa arrin Soomaaliland dhexdeeda talaabo hore aanu qaadnay oo noo dhisan maanta cidda u hadlaysa soo iyo la saarada arinteedu waa garaadada diyaar baan u nahay garaadaas si alliyasi iyo fagaraha doonayaan ee cid doonayaan bay lagu hadlo oo Soomaaliland oo dhamay gogasha oo dhigto qof ay wada walaal maxaa doonaysaa maxaa qaldamay maxaynu saxnaa waxa ay xilqaamay oo arintan laga furtay oo imika u dhisan oo taagan madax dhaqameedkii Soomaaliland oo dhan oo aan ku jiro raaso waa diyaar waa inaga iga wakiil wixii nabad lagu helayo ee ay keenayaan diyaar baan u nahay haddii cid kale loo baahdo waa ku dareen markaa waxaan doonayaa inaan qodobka caddeeyo inaynu arrintaas Soomaaliland ay kow inoo tahay inaynu xarkada dhameeyo qodobka labaad inoo yaallay isna culayskiisana waxa weeye qorshaheenu hore u ahaa sanadkan inuu noqdo sanadkii doorashooyinka iyadoo dhibaatooyinka imika salaascaano taagan haddana waa khasab dalkan haddaanu doorasho gelin oo aan la dooranin madaxda ama madaxweynaha soo socda iyo cidii kala doorashada taagan tahayba dee socon maayo
دستوركنا أرجع شتى صار مرة إسبوريسيو هذا اللي بات جفتنا وين مدير ونقدر أنا دور هرين دور شوينكا وحينوجو حرصاران قد إذا دور شوينكا قرق وحينو كان يانو يجانو قفر على نو كيران وضدي دور شخص سيلو وقتي القبلها يمددي وضد لما لها مدري يضوى عداني مك waxaan ku jiraa qasab weeyaan doorasho galay doorashooyin waxaan ku jiraa saddexdii xisbi qaran oo waqtigooda dhacay waa doorashada gali karin ilaa iyaga dib loo doorto waxaan ka noo taagan 10 urur oo certificate loo siiyay inay u tartamaan inay xisbiga qaran noqdaan oo iyaguna darka taagan oo wardee maxaa waqtigeena looga qaaday waxaan u baahanahay in isugu geyno inaynu degdeg guddiga doorashada uga codsano bal inaynu sameeyaan qorshe aynu waqtigeenu ka bixi karayno dhaqaalihii iyo amnigii iyo nabadii ma wahaynaa mar isweydiinayna in xisbiyadii iyo ururada doorashadii galaan oo tartamaan oo saddex xisbi soo baxaan oo qaran ma jiro xisbi oran kara anigu xisbi baan ahay la tartay maayo ururada oo sharci shirkad baa xitaa isku taalbeen saadarteed saamilada siyaasadda oo imika saddexdii xisbi iyo 15 kale urur soo baxo sharci ahaan siman waxa laga rabaa inaynu qorshahaana iyadoo aan istuhmayn iyadoo aan cid ku riixayn ee doorasho la'aan dalku aanu soconaynin inaan ku dadaalo si goormaynu qabsan kara doorashadii iyadoo waa mudaanta koobaado inta ay ka dhaxaysaa ka wad shan doonta iyagoo is hiifeen iyagoo is caayeen iyagoo dadka jahwareerin qodobkan halkaas dhigaya aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa qoladana waa hambalyeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh